gabayagii hebel beerkii wala qoraya markii wax laga yaabay in la qoro oo aad loo xoojiyo wadhic awaan loo baahan yahay buugaa in la qoro laakiin waxa mar walba maqan qayb la taabanaysa oo ah qaybta carruurta maanta waxaan noo maray qaybta carruurta waa xooga waa saarayna waa dareensiintiina inaan ka wada qaadayo jacaylkiina waa idin sameeyaa maal iyo sugaanna waa idin dambaysaa laakiin fariintan carruurta waxaan ugu horeysay inay tahay fariinta ay inuu kala qaadataan ay tahay hooyooyinka aabayaasha walaalayaal in la qaato qof walba ka fikiro 20 page ama badal buug carruurta ka hadlaya ma aha la bishay jir ma aha waa 5 jir waa 6 jir marka dhaqan ahaan waynu ognay masiixna carruurta buug masiixna waxay ku seexnaa waa waxa la fikiraa haasan taasii iyo soo waxay markii seexan wareeyay la soo qaaday guddiga baa hooyada meel ku yaala guddiga baa soo qaaday wato dad saal u seexayay aad bay u farbaday waxa laga yaabaa inay dhowr meelood ay ku jiraan qaarkood laakiin buuga carruurta hadda si raacdo markaa idinka idinta carruurta eega taariikh waliba qof fadhi ku dirka soo dooro uu qortay suugaan qof bas uu doono uu yar jeclaysanayo macnaha meelo kale ku maqan ubadku uma baahna iyagu wax kale oo suugaanta ujeedada suugaan ahaan suugaan sideedaba ma aha gabay marka bisad ambatay de bisad lagama hadal siiyo laakiin waa suugaanta ka mid tahay xoolo wada xulay marka ilmahay xulkii weynaana ma aha yaani bisadu yaani nala gali meel waa weyn laakiin waa bisad yar weyn waa mid carruurta marka ambadka